وهاجك دغيستيال halka aad nagala socotaan waa radio Jowhar mujadid 89.5 megahertz Jowhar shabeellada dhexe shabeelle Soomaaliya degeystayaal goorahan oo kale waxa inooga barateen in ay idin soo gudbino tartanka isdhaxgalka dhalinyarada ee degmada Jowhar tartankaas oo ka socda garoonka Shongale Stadium ayaa galabta waxa ciyaar xiiso badan ay dhaxmari doontaa kooxaha Sahan oo ka dhisan xaafadda Hanti Wadaag iyo kooxda Balguri oo ka socota xaafadda Horseed waxa ku sugan garoonka qaar kamid ah wariyaasha idaacadda Jowhar oo alaaban u soo gudxiliyadan oo kale ciyaarta waxa si toos inigu duwi doona Maxamed Cabdirasaaq Tolman iyo Maxamed Deeq Yuusuf Macalin oo ku sugan garoonka Shongale Stadium badan oo dhexeysa kooxaha Balguri Junior oo ka socota xaafadda Horseed kooxda kale ee ka socota lagu magacaabo Sahan FC oo ka socota xaafadda Hanti Wadaag waana tartanka 17 sano jirada dhalinyarada ee ka socda magaalada Jowhar gaar ahaan garoonka weyn ee Shongale Stadium ee magaalada Jowhar ciyaartu waa afar dhamaad tartanka jirada garsoor Harun ayaana dhexdhexaadin doonaan Ahmed Kuka iyo garsoor Yahya ayaa labada kooxood ee lagu kala magacaabo kooxda Balguri oo ka soo gudubtay ama ka soo badisay kooxda lagu magacaabo Ocean halka kooxda Sahan ay ka soo badisay kooxda lagu magacaabo Dayax oo ka socotay xaafadda Kulmis ciyaarahan ayaa ciyaar xiiso badan oo ay dhalinyarada lagu dhiirigelinayo si ay dhalinyarada iyo bulshada ana tartan ka turjumaya nabadda waxaad si toos ah ugu dhageysanaysaan idaacadda Jowhar mawjada FM ka 89.5 megahertz ciyaarta ayaana waxa laga warsugayaa garsoore Harun inuu seeriga ku dhufto si ay ciyaarta labada kooxood ay u baasanto labada kooxood ayaa shaxahan ku soo galay haddaan ku horeyno kooxda Balguri Junior ka socota xaafadda Horseed ayaa waxay ciyaaraysaa shax 4-4-2 goolhayo Wayama oo ah goolhayo cajiib ah oo guusha ee kooxdan Junior ee kaga soo guubtay wareegii hore uu dhaliyay goolhayo Wayama daafacyada waa Munir oo lambar 5 wata Iimaan Xataas oo lambarka 4 wata Usaame Shirdo oo lambarka 3 wata iyo Xusni oo wata lambarka 8 qadka dhaxna waa Caluufi oo wata lambarka 18 iyo Cabdi Cadde oo wata lambarka 7 iyo Cabdalla AJ oo wata lambarka 10 iyo Liibaan oo wata lambarka 6 kooxdan ayaa waxa uu tuuran laba weerar oo kaliya waana Muxiidiin oo wata lambarka 9 iyo Mahad oo wata lambarka 11 halka kooxda Sahan oo ka socota xaafadda Hanti Wadaag ay ciyaarayaan koox ciyaaryahanada kala ah Abbas Ismaan Hussein Abdurrahman Abuna Sharmaarke Anu Shima Umar Neymar Shubey Abdullahi Tuni Sadiq Ahmed iyo Maxamed Farmaajo macalinka kooxdana waa Abdullahi oo waa goolahayaha kooxda ambaha ee Sahan waa Abdullahi oo runtii wax daro ka dhigay goolkulaadadii ay kooxdiisa ay ugu soo gudubtay wareegii xiga isagoo inta badan ciyaaryahanada kooxdii Dayax uu inta badan rigoorada uu ka wada qabtay tabinta tooska waxa ay la qayb galaya saaxiibkay Tolman ciyaarihii tartanka 17 jirada wareegga finaalka ayaa maanta bilaabmay labada kooxood iyo Balguri iyo Sahan balka hor ciyaaraas aad iyo aad tartanka wuxuu marayaa meeshii ugu xiisan ay xamaasadda bayd go'downa waxa la sugayaa in ciyaartii ay bilaabato way baas ciyaarta waxaana baasay ciyaaryahanka lambarka 10 wata Cabdalla AJ difaacyada kooxda Balguri Junior Iimaan Xataas Iimaan ayaa wata wili qadka dhexe Xusni Liibaan ayaa wata
oo kubad la soo tuuray dhanka iyo kooxda sahan oo ka socota xaafadda hanti wadaag lambarka 11 ee kooxda waa iska soo saareen ciyaaryahanada kooxda sahan wili waa lagu dagaalamayaa lambarka 18 Abbas Umar ayaa wata Abdullah kooxda sahan hanti wadaag ayaa ciyaaraysa محمد فرماجو لمبرك 8 ee kooxda sahan ma hada ayaa wata waa markaana waa xusni Abdallah ayaa jidka u galay qadka dhexe liibaan ejey ano waa iska soo saaray laakiin waa kubad gacan tuurasha waxaana iskale kooxda baalgurujiya ka socota xaafadda horseed waxaana tuuraya ciyaaryahan Usama waa uu tuuray Alofi qalad ayaa lagu galay ciyaaryahan Shuuri oo ka tirsan kooxda sahan oo ka socota xaafadda Hantuudaad waxaana qaladkii ku galay ciyaaryahan Alofi oo lambarka 18 wata kooxda Balguri Abdurrahman Abuna ayaa kubadda u taagan lambarka 5 ee kooxda sahan waa uu dhaqan geliyay kubaddaas khadka dhexe Iimaan ayaa ciyaaraya Abdallah ayaa kubaddaas wata laakiin waxa hortaagan Xusni waa la dhaafay Abdallah ayaa wata garabka bixi qalad ayaa lagu galay halis Abdallah ayaa qaladkaas lagu galay garsoore Haarun ayaa la digniintii ugu horeysay diiday ciyaarta digniinkaasi oo uu qaatay ciyaaryahan lagu magacaabo ciyaaryahanka lambarka 4 waa Iimaan Cataas oo kaarka digniinka loo taagay kadib qalad uu ku galay ciyaaryahan Abdullahi Tundi ciyaaryahanka qalad uu galay ayaa kubaddaasi u taagan si uu dhaqan geliyay Abdullahi Tune waa kubad bulisiyoona garabka bidix ayana ka imaanaysaa waxaana loo tuuray dhanka iyo kooxda Balguri waa uu soo tuuray Abdullahi laakiin waa kubadda u dheereeyay ciyaaryahanka markana waxaa kubaddaasi soo dhaqan gelinaya daafacyada kooxda Balguri waxaana u taagan ciyaaryahan Muniir waana kabtanka kooxda lambarka 5 u wata Muniir ayaana soo dhaqan geliyay khadka dhexe kubadda waa lagu dagaalamayaa Xusni ayaa madax ku soo bixiyay Abuna ayaa kubaddaasi helay Abbas kubaddaasi iska soo saaray waa kubad foorgacana waxaana tuuranaya kooxda Junior Balguri Junior ka socota xaafadda horseed Imaan ayaa kubaddaasi soo dhaqan geliyay kooxda sahan xaafadda Hantuudaad ka socota khalad ayuu ku galay ciyaaryahanka 4 iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo AJ lambarka 18 ciyaaryahanka u wata Abbas ayaana qaladkaas ku galay Iimaan ayaa u taagan kubaddaasi oo ah kubad bulisiyoona kubad ku wajahan goosha kooxda sahan waa dhinac mariyay Iimaan ciyaaryahan Iimaan lambarka 4 u wata ciyaaryahan daayira lambarka 4 u wata kooxda Balguri Junior oo ka socota xaafadda horseed Ismaaciil ayaana markaan u taagan kubadda inuu dhaqan geliyo waa mid ka mid ah daafacyada kooxda sahan ee xaafadda Hantuudaad Ismaaciil kubadda uu dhaqan geliyay Abuna qalad ayuu leeyahay garsoore Haarun labadan kooxood ayaa galab mid kooxii badiyay doonaan wareegga kama dambaysta final maalinta Britana ciyaartan waxaa ku balansan waxaa wadajir oo ka socota Buulashiikh iyo kooxda Buula Jazeera oo ka socota xaafadda Kulmis runtii waa ciyaar xiiso badan maalinta Britana deebi karaal noqdo garoonka Shangoli Stadium ayay ku balansan yihiin kubad faul kubaddaasi waxaana iskale kooxda sahan oo ka socota xaafadda Hantuudaad waxaana u taagan ciyaaryahan
ismaaciil ayaana dhaqan geli doona. Ismaaciil waa uu dhaqan geliyey. runtii ciyaarahan ayaa waxaa aad ugu muuqda ciyaaryahanada da'yar ah oo runtii xirfadaha kubadda cagta si fiican u yaqaan. waa ciyaaryahana runtii da'dooda aad u heesooso. waa 17 san jir. markaana Muniir ayaa soo dhaqan gelinaya. Muniir kabtanka kooxda Baalguri Junior ee xaafadda Horseed. Muniir waa uu soo dhaqan geliyey kubaddaasi khadka dhexe. Xusni ayaa kubaddaasi helay khadka dhexe. Xusni waa iska soo saareen kooxda Sahan. Usama Usama ayaa wiil watan. Abuna ayaa kubaddaasi raacaya. waa kubad foorgacan ah waxaana iskale kooxda Sahan. ano wuxuu loo ciyaaray Usama ayaa kubaddaasi ka difaacay. waa ciyaaryahan aad ugu muuqda ciyaaraha. ano ayaan dhaqan geli waa uu khalday kubaddaasi. Garsoore Haaruun ayaana ka dhigay. markaana dhinaca iyo foortuuriga waxaa loo tuuri doonaa dhanka iyo Sahan. Usama ayaan dhaqan geliyey. Cabdiraxmaan Abuna waa iska soo saaray mid ka mid ah daafacyada ugu waa kubad qaldan. waa kubad qalada waxaana iskale markaa lambarka 10aad ee kooxda Baalguri. Sadiq lambarka 10aad ee kooxda Sahan. labada kooxood ayaa muddaa in ay difaacay ku wada jiraan. labada kooxood koox walbana wuxuu iska ilaalinayaa in gool loogala hormaro. khadka dhexe Mahad Usama garabka bidix. Usama waa foorgacan waxaana iskale kooxda Sahan. ano ayaana tuuray. Mahad waa kan garabka. Cabdiraxmaan Abuna ayaan kubaddaasi saaray. Garsoore Haaruun ayaa kubadda wuxuu leeyahay gadaal siko gacan tuur waxaana iskale kooxda Baalguri Junior ee xaafadda Horseed. waxaana uu tuuraya ciyaaryahan Usama Shirbu. Usama waa u dhaqan geliyey. Mahad kubaddaasi waa celin waayey. kontaroolka ayaa ku xumaaday ciyaaryahan Liibaan. kabtanka kooxda Sahan ayaa dhaqan geliyey kubaddaasi. Xusni ayaa soo saaray. Liibaan labada kooxood ayaa u muuqda in ay labada aad u taxadarayaan ciyaaryahanadooda. mid walbana wuxuu ciyaarayaa kubad degan. ma jecla in kooxun ay gool lagu hormaro. lambarka 8aad ee kooxda Sahan. qalad ayaa lagu galay ciyaaryahanka Cabdullaahi Toone ayaa qalad lagu galay. Cabdullaahi ayaana qaladkaas ku galay kooxda Baalguri ee xaafadda Horseed. waana kubad Buliziyoon oo ka imaan doonta dhinaca garabka midig. waxaana uu tuuri doona ciyaaryahan Shubey oo ah kabtanka kooxda Sahan ee xaafadda Hantiwadaag. Shubey garsoore Haaruun ayaa la sugaya inuu dhaqan geliyo. Haaruun waa uu yeeriyey seeriga. Shubey waa uu saaray kubad halis ah. waa iska soo saareen kooxda Baalguri Junior. markaan dhanka iyo weerarka waa kooxda Sahan. weerar uga celisa ciyaaryahanka lambarka 4aad ee daafac ugu ciyaara kooxda Sahan. Ismaaciil oo iska soo saaray. Ismaaciil kubad foorgacan waxaana iskale kooxda Baalguri Junior ee xaafadda Horseed. labada kooxood ayaa muddaa inay ciyaarto haddii ay u kululaato. ciyaaryahanada labada kooxood ayaana ciyaaryahanno ku matalayaan labada ciyaaryahanada xirfadooda aad u sareysa. Liibaan lambarka 6aad ee kooxda waa uu qalday. Cumar ayaa foorgacan u tuuray kooxda Sahan. wiil Sahan ayaa leh. Cumar waa uu qalday kubaddaasi. kubad qalad ama dhanka iyo kooxda Baalguri ayaa dhaqan geli doonta xaafadda Horseed. Garsoore Haaruun ciyaaryahanada wuxuu leeyahay
gacantuurka si fiican ha loo soco dhowr jeer ayuu ka dhigay garsoorow waa faul kubaddaasi waa faul lagu gal ciyaaryahan liibaan lambarka lixaad u wata kooxda baalguri ee ka socota xaafadda hanta wadaag waana kubad laad xor ah waxaan u taagan ciyaaryahan cabdalla ejey lambarka 10aad ee kooxda baalguri ayaa u taagan cabdalla waa kubad runtii halis ah waana kubad ku qurux badan si in madax loo saaro ciyaaryahanada malahan guulahayo wayaama ayaa ku fiicnay kubadaan oo kale inuu balaan ku soo baxo si uu kooxda natiijada ugu dhaliyo waa guulahayo wayaama runtii waa guulahayo cajiib ah ejey waa uu soo saaray waa iska saareen kooxda shoobey kooxda sahan ayaa xaafadda hanta wadaag cabdalla toone ka bidi cabdalla waa uu dhaqan geliyey xusni ayaa soo saaray ayee ano iyo muxudiin kubadda wuu celin waayey waa kubad ku socotay xawli labada kooxood jaanibkooda aad u yar hadday heli lahayn kuley guul waa loo samayn karaa guulahaaye cabdullaahi aa'i ayaa kubaddaasi u taagan waa daafaca lagu magacaabo ismaaciil ayaan dhaqan gelinaya kooxda saane xaafadda hanta wadaag qadka dhexe ayaa lagu dagaalamayaa xusni soo saara lambarka 8aad ee kooxda baalguri xaafadda horteed cabdullaahi ee kooxda saane xaafadda hanta wadaag waa runtii waa difaac degan ciyaaryahanka lambarka 9aad ee muxudiin ayaa qalad ku galay ciyaaryahan kale waa toone waa garabka bixi markaan saan ayaa ciyaaraysa waa laga soo difaacay iimaan cabdalla ayaa kubaddaasi helay sadiiq saan ayaa ciyaaraysa cabdalla sadiiq ayaa mar kale helay haya garabka bixi cabdalla haddana waa kale mar kale waa kubad weerar iimaan ayaa hortaagan iimaan xataas waa laga soo gudbiyey iimaan markaa waa garabka kabtanka kooxda sahan iimaan ayaa soo hortaagay waa difaaca aadka u maskaxda badan ee u ciyaara kooxda baalguri junior ee xaafadda horseed markaan waa muxudiin lambarka 9aad ee kooxda waa weerar markaan weerar muxudiin waa kana lambarka 9aad waa garabka midig ayuu kusoo galaya muxudiin waa u socdaa laakiin waxaa ka hor istaagay cabaas lambarka 10aad ee kooxda sahan ee xaafadda hanta wadaag runtii weeryahanada aad ugu muuqda ciyaarta ayagoo fursado badan isku dayaya sida ay shabaqa ku gaari lahaayeen laakiinse waktiga ayaa weli dhiman koorna ay leedahay kooxda baalguri junior ee xaafadda horseed xusni ayaa u taagan xusni waa uu soo saaray laakiin waxaa ka hor istaagay ciyaaryahanka lambarka 26aad cumar ee kooxda sahan xusni ayaa soo dhaqan geliyey cabdullaahi tuune waa kubad uu ku garaacay ciyaaryahanka muxiidiin ee lambarka 9aad wata waa kubad goolfoor gacna cabaas ayaana soo dhaqan geliyey cabdullaahi tuune iimaan ayaa kubaddaasi helay muxiidiin lambarka 9aad ee kooxda horseed haye waa kane kubadda halisa cabdiraxmaan abuna ayaa kubaddaasi soo saar waa kubadda halisa lambarka 30aad ee cabdi cadde ee kooxda horseed ka dhisan ee baalguri kubad sayruuqa ayuu ku tuuray kooxda sahan balse cabdiraxmaan abuna ayaa kubaddaasi kasoo difaacay cabdiraxmaan abuna lambarka waa kan cabdiraxmaan runtii waxay ahayd halis cabdiraxmaan ayaa ka diiday balse malahan kubaddaasi cabdiraxmaan haddii ay dhaafin lahayd waxay u badnayd gool inay ahaan lahayd runtii waa fursad cajiib ah waana fursadii ugu muhiimsanaa ee soo mara kooxda baalguri ee ka dhisan xaafadda horseed markaan waxa uu taagan ismaaciil kubaddaas waa uu dhaqan geliyey iimaan ayaa soo madaxeeyey cabdalla ayaa haysta kubaddaas runtii fursaddaas cajiib ayay ahayd cabdiraxmaan هنا runtii waa lambarka 5aad runtii waa ma sha Allah aadkiisana aad u taagan
kubad halis xamaaya soo dhaqangeliyay xisni ayaa khadka dhexe u taagan xisni aad ayuu ugu muuqdaa khadka dhexe ismaaciil ayaa kubaddaasi u taagan waana kubad laga soo dhaqangeli doona dhanka iyo kooxda sahan ee xaafadda wadaag ismaaciil waa uu soo dhaqangeliyey khadka dhexe shobey iimaan ayaa hortaagan cabdalla eji cumareeno kubaddaasi waa u dhaqangeliyey xisni ayaa madax ku soo bixiyey osama ayaa kubadda markaan osama waa uu gaari waayey kubaddaasi laakiin waa foora gacan waxaana iskale kooxda sahan ee xaafadda wadaag sahan ayaana dhaqangelis kubaddaasi liibaan lambarka 6 ee kooxda baaguri junior iimaan ayaa kubaddaasi iimaan madax ayuu kusoo bixiyey kubaddaasi markaan muxidiin lambarka 9 ee kooxda baaguri junior muxidiin cabdalla ayaa ka hortaagan xusni waa iska soo saaray farmaajo tune shobey kabtanka kooxda saxan shobey farmaajo ayaa haysta kubadda xariiqinka 18 farmaajo halis kubaddaasi garabka bidix waa uu iimaan ayaa kubaddaasi si maskax leh ku xishtay laakiin kubad goolkiga ah waxaan iskale kooxda baalguri ee xaafadda horseed runtii farmaajo ciyaaryahanka garabka bidig uu ku ciyaaro kooxda sahan waa ciyaaryahan runtii xirfad badan oo ay soo dhaqangeliyey kooxda baalguri junior ee xaafadda horseed muxidiin kubaddaasi waa u dhaqangeliyey muxidiin lambarka 9 waxaa hortaagan laakiin ismaaciil lambarka 4 ee kooxda sahan ee xaafadda hanti wadaag waxaa muddaa labadan ciyaaryahan inay elid isku yihiin ismaaciil oo daafaca iyo lambarka 9 ciyaaryahanka wata kooxda baalguri junior ee muxidiin waa ciyaaryahan daayira ismaaciil ayaa dhaqangeliyey kubaddaasi ismaaciil khadka dhexe waa lagu dagaalamaya farmaajo shobey kabtanka kooxda sahan shobey xusni ayaa raacay shobey waa u galay xariiqinta 18 shobey waa uu ka haray kubaddaasi laakiin waxaa la dagaalamay ciyaaryahan xusni waana kubad koorna shobey wuxuu rabay kubaddaasi inuu xariiqinta 18 la galo laakiin ciyaaryahan xusni ayaa ka hortaa shobey koornada waa ay dhaqangeliyey shobey waa u saaray kubaddaas karoos golahaye wayaama ayaa kubaddaasi si kedisa ku qabtay wayaama waa u soo dhaqangeliyey markaan waa ka muxidiin waa weerar ugal celisa muxidiin ismaaciil ayaa hortaagan laakiin waa uu ka gaari waayey muxidiin ciyaaryahan ismaaciil ayaa hortaagan lambarka 9 ee kooxda baalguri junior ee xaafadda waa ciyaaryahanka muxidiin lagu magacaabo ismaaciil iyo muxidiin waa laba ciyaaryahan sida hore ku sheegay oo lidis ku ah waa daafac iyo weerar ay garabka bidix cabbaas haye waa u khaldan ciyaaryahankan haye liibaan cumar neymar ayaa ka soo qaaday cabbaas waa u baxay cabdullaahi tuune garabka bidix weerar ugo ciis cabdullaahi tuune garabka bidix waa u galay balse waa laga difaacay kubad qaada runtii kubadaha waxaa moodaa in garbaha ay aad ugu socdaan labada kooxood ciyaaryahanada garbaha ugu ciyaara ayaana aad u shaqaynaya labada kooxood ayaana kubadahooda inta badan garbaha saaraya waa ay qaldeen gacantuurkaasi kooxda sahan ee xaafadda horseed qaybihii hore ee ciyaarta tabinta tooska ayaad la socotaan waana barbardhac eber iyo eber labada kooxood ilaa iyo marka way ismarlaayihiin kooxda sahan kooxda baalguri junior ayaa dhaqangelinaysa foor gacanta kooxda ciyaaryahan iimaan ayaana dhaqangeliyay iimaan waa uu qalday iimaan dhanka iyo kooxda baalguri ayaa loo tuuri doonaa sahan ayaana tuurinaysa shobey ayaa dhaqangeliyey shobey uu qalday waa sooraa wuxuu leeyahay kubaddaasi waa kubad qalad ah muniir ayaa u taagan marka 5 ee kooxda baalguri ee xaafadda horseed muniir kabtanka kooxda waa ciyaaryahan degan sana daafaca calofi haye shobey kabtan
kabtanka kooxda sahan shoobey kubadda lagama qaadi kari inaa faulaysa mooyaane faul ayaan lagu galay waa hadalka intaysan dhammaan ayaaba sheegay faul in lagu gali karo ciyaaryahanka runtii waa ciyaaryahan si sahla lugtiisa kubadda looga bixi kari inaad faulaysa mooyaane qalad aad ku gasho ciyaaryahankaas waana kubad bulisyona asigaana u taagay ciyaaryahan shoobey waa uu dhaqangeliyey iimaan ayaa madax ku soo saaray iimaan waa kubad foorgacan waxaana iskale kooxda sahan ee xaafadda hanta wadaag shoobey ayaana u taagan runtii shoobey waa ciyaaryahan meel walba ka muuqda bulisyonada kornooyinka foorgacanada runtii ciyaaryahan shaqooyin aad u muhiima u haya kooxdiisa qadka dhexe haye waa iska saareen sahan shoobey mar kale waa kana garabka bidix ciyaaryahan shoobey cabdalla ejey shoobey waa u soo galay xariiqan 18 imaan ayaa ka hor istaagay cabdullaahi tuuryare iyo imaan ayaa israacaya iimaan ayaa kubaddaasi ka hor istaagay cabdalla tuune iimaan ayaana kubaddaasi soo dhaqangeli doona waana kubad foorgacan ah عمري عبد الرحمن عبد الله تونة قرب كبير إيمان يا تاجن عبد الله تونة كنتي عبد الله تونة إيمان يا وضعها ولا تقال يا إيمان عياريها دافع سيئات في عنتهاي وأنا دافعة قرب كميدي وعيارة يا كوحدة بالقوي حافظ ورسل شوبي يا كوتا السورة قلبي وقلت شوبي كوتا سي قلت هارون يعني قلت ينسي كدقل ليبان أولا مرك اللي حاد وطا يا كوحدة بالقوي أيانا كوتا سي وتاقن بس ليبان كوتا سؤال قبريقي عبد الله إيش شي ثلاثين وقلت عيارة كوتا سي شوي أنا كوبد مركانو تاجر وكوبد فرقعنا قيبتي هوري أي تبين تتواسكا قطعك أيات دقيساني إنسان عدد جوار موجود FM بستني سقال لي بعشان مقاعد قيبتي هوري عيارته وبربردا عبر يبر الله وذا كوحود سهن وكسعة حافظة هنت بداك يكوحد بال برجونير يكسعة حافظة هرسيد وانا وريك أفرقمات كما سما فاينالك ألو دقالما يا كوبت مركان عبد الله تونة قالوا كبيح عبد الله تونة وصل قنقلي أسامة يا مدح قصة ساري هاي أنا عبد الله تونة كوبت واي وكخل دنتي هاي عمر نيمر واو عياريها انك ساحب كيسا يوربين ولا عيار لك وقاري واي عياريها هندا ايامو دا ان كنتي فرصة هذا آت وسائلي سلايهين شان سيدا ايانا آت وير تاسا ايانا كتنك عيارتين حلقان ايسو قارت بربردا وحقول الله انا مركان وا عبد الرحمن قول هاي اي وأودخ إنجلي يقول هاي وقبض خلطة هاي حريقين تستيري تبنك أسامة قبض أسمع وقول عليه ساحب كيسة علوفي واو صار علوفي هاي محيدين اسماعيل يا صاري قبض أسي هاي ويلي حريقين تستيري تبنك يا وليك أسامة يا قبض أسي ملف برانك هاي أسامة هاي مركان واكو على سان هاي شوبي قالوا كميدك شوبي حسنا يا ساي هاي شوبي واو قلي شوبي حسنا يا راعية شوبي إيمان يا كوبتاسي هلاي هدنه إيمان وأصاصي أسامة قد تدحي ليبان واو قلدي هاي واكنا مركان ليبان يا وطا كوبتاسي خلط يا لو قال ليبان waxaana ku galay ciyaaryahanka 18 ee lambarka 18 oo wata kooxda sahan waa Abbas George waa qaab loo dhigay kooxda
بالجروج جونيور ee xaafadda horseed waxaan u taagan ciyaaryahan xusni waana laad xur ah garsoor Haarun ayaan kubaddaasi dhaqan geli doona ciyaaryahan Cabdi Cadde oo lambarka 30aad u wata ee kooxda بالجروج جونيور ee xaafadda horseed ayaan kubaddaasi dhaqan geli doona Haarun waa uu yeeri seeriga garsooraha Cabdi وصاري بوليسيون قريب بدل عبد لما كسدنا هذه كوحدة بالجروج جونيور لا ظهره كبد قريب بدل كل هاي اي كبداسي واو خواي سكستو بودي عياريحن عبد كبد قريب بدل وانا قوشي وقرب بدنيت ابد ترتن كان لغا دلي ملحن الجول يا وحبة كوحدة بالجروج جونيور يا حافظة هورسيت أكون كايو فرين كوحدة بالجروج جونيور يا حافظة هورسيت جول يا وحبة لو قمنا يا كوحدة صحن يا حافظة أنت وذاك عياريان عبدي عدي لما قصتنا طوة كوحدة بالجروج جونيور يا وصحيح هاي جوشاس هاي واكن كوحدة خلاص يا لوديجي هاي طول من كبرن قول هاي سيدو عياريان عبدي وحوها لات عجيبة وليبا لات حرة وان لات حركي وقوه يدو صعورة تفتكا لغدا للي تفتكا لوغو تلقى استعقلك بالشدة هاي مقال كوحدة سان عبد الله عبد الله يجي كوبداس وغاري ويرنتي كوبد قريب بدل ايو دليي عياريهن عبدي oo lambarka 30aad u wata kooxda بالجروج جونيور ee xaafadda horseed qalad ayaa lagu galay ciyaaryahanka Cumrey Neymar ciyaaryahan Cumrey Neymar qalad ayaa lagu galay kaarka tikniga ayaa loo taagay ciyaaryahanka lambarka 18aad u wata kooxda بالجروج جونيور waana Culufi ciyaaryahan Culufi kaarka tikniga ayaa loo taagay waana kaarka labaad uu garsoor Haarun u bixinay horay waxa kaarka loo taagay Iimaan Cataas oo lambarka 4aad u wata markana waa Culufi oo lambarka 8aad u wata Cabdullaahi ayaa laad xur u taagan Cabdullaahi garabka bidix ayuu ka soo saaray Cabdullaahi waa uu soo dhaqan galiyay Iimaan ayaa madax ku soo saaray Cabdullaahi ee jeeda lambarka 10aad liibaan abababa Cabdullaahi markaan helay madax waa uu gaari waayay ciyaaryahan Shubey gooli waxba ay ku hogaaminaysaa kooxda بالجروج جونيور ciyaarta waana qaybtii hore ee tartanka 17 sano jirada ka socda magaalada Jowhar waxaana si toos ugu dhageysanaysaan idaacadda Jowhar muujada FM 89.5 magaarta Cabdi Cadde hay marka Muhiidiin waa u dhaqan galiyay lambarka 6aad liibaan waa uu gaari waayay kubaddaasi waa goal kick ama kooxda waxa iska leh sahan ciyaaryahan Ismaaciil ayaa u taagan inuu dhaqan geliyo kubadda runtii kooxda sahan su'aal ayaa loo diray ma ka soo jawaabi doonaa talow lambarka 11aad ee kooxda sahan ee xaafadda Anta Wadaag Cabdullaahi Tuune Iimaan ayaa kubaddaasi ka saaray Cabdullaahi Tuune waana foor gacan Cabdullaahi ayaa u taagan waa u dhaqan galiyay Cabdullaahi waa iska soo saareen kooxda horseed waa isku qalday ciyaaryahankaasi Ismaaciil ayaana kubaddaasi raacay goolhayeeno Ismaaciil Abbas khalad ayaa lagu galay runtii si qurux badan ayuu xariiftamay lambarka 6aad Shima Abbas Umar Neymar garabka bidix Umar ayaa wili wata Culufi ayaa ka difaacay Umar Neymar wili Umar ayaa wata khadka dhexe marka waa kan Cabdi Cadde dhaliyaha goolka koowaad ee ciyaarta Cabdi Cadde qalad ayaa lagu galay garsoor Haarun ayaana dhigi qaladka kubad laad xur ah
إيمان أنا صور دخن جلدونا إيمان عطاس لما كافرات كوحدة بالقري جوير حافظ ورسيد إيمان واو صور دخن جلدي هيا واكنا كبدا مركز محيدين محيدين كبدا واو قلبي هاليس runtii jaanis waxaa soo maray kooxda baalburjuyeer ay goolka labaad ay ku dhaqaaqayeen balse muxiidiin ayaa ka cunay muxiidiin jaaniskaasi waa uu ka faa'iidaysan waayey ismaaciil ayaa markaa kubad soo dhaqangeli doona ismaaciil waa uu soo dhaqangeliyey qadka dhex waa lagu dagaalamaya xusni ayaa madax ku soo saaray usaama ayaa raacaya usaama anow waa u baasay farmaajo ayaa wili wata xusni usaama haye waa kana markaa liibaan cabdi xataa ayaa wata bababal quraya si qurux badan ayuu cabdi u maray ninka ciyaaryahan ka tirsan kooxda saan cabdi dhaliyaha goolka koowaad ee ciyaarta runtii waa ciyaaryahan aad u xifad waa ciyaaryahan degan markay lugtiisa soo gashay ama si maskaxa u maamula ismaaciil ayaana markaan kubadda soo dhaqangeli doona dhanka iyo kooxda sahan ee xaafadda hanti wadaag ismaaciil waa uu soo dhaqangeliyey dhegeystayaal qaybta koowaad ee ciyaarta ayaa sidaasi kusoo gabagabowday halkay kooxda beelguri junior ee xaafadda horseed ay gooli waxba kaga hogaaminaysa kooxda dhigeeda sahan ee xaafadda hanti wadaag garsoore haaruun ayaana seerida sidaasi ku yeeriyey qaybta labaad ayaana dib iskugu soo laaban doonaa tabinteena kale waxaadna kala socotaan idaacadda jowhar mawjada fmka 89.5 megahertz waana tartanka ciyaaryahanada 17 san jirada ee magaalada jowhar ee ka socda garoonka weyn ee Shankale Stadium waana wareegga afardhamaadka ee tartanka dib ayaan iskugu soo laaban doonaa dhanka iyo farsamada banaanka u soo saaray saaxiibayaal waliba ka soo dheereeyay aaga goolka kooxda sahan ee ka dhisan xaafadda hanti wadaag waxayna noqonaysaa gacka tuur Cabdalla Tuni Abbas ayaa saqatay gacka tuurkaasi oo sahan hanti wadaaga waa uu sameeyay durbadiiba Abbas markan waa banaanka markale waa gacka tuur kooxda sahan oo uu horyaallo imtixaan noqonaya in gool ay ka jawaabto maadaama kooxda balguri ee ka dhisan xaafadda horseyd ay ku warkacaysa natiijada ciyaarta gool iyo waxba markan Umar Neymar qalad ayuu tilmaamayaa garsoore Haruun oo ka mid ah garsoorka u diiwaangashan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya sidoo kalena qayb ka garsoorada ka yimid magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan tartamada lagu qabanayo degmada Jowhar Munir ayaa kubadda la ciyaaray ilkabitano Munir horay ayaa u sheegay inuu yahay nin aad u degan markan waa Cabdallah Ejey ugu dambeeyay Umar Neymar sahan Neymar ugu dambeyn Xusni ayaa kubaddaasi cirka ku toolay ugu dambeyn waa Olofi Maxamed Farmaajo waa tilaabsado galayo galo wayridka goolka banaanka laakiin waxayna noqonaysaa kubadda in la dhigo goolka wayama Munir ayaa doonaya in kubaddaasi uu soo ciyaar geliyo waa kooxda Balguri ee ka dhisan xaafadda horseyd oo wali ciyaarta ku warkacaysa gool iyo waxba markan Munir waa difaaca kaliya ee awooda isagoo waliba goolkiisa jooga in kubadda Tonile uu xeeladaysto mana wax uu dheeryahay difaacyada kale ee aan aragnay ilaa iyo haatan waxay noqonaysaa gacka tuur Abbas kooxda sahan ee hanti wadaag uu sameeyay Osama Balguri horseyd isaga ayaa kubaddaasi banaanka u saaray waxay noqonaysaa markale gacka tuur Abbas markale waa Osama laakiin garab dhaaf ayuu tilmaamayaa cala wada Yaxye ama qaladan dhehe Cabdallah Ejey ayaana dhulka yaalla oo kooxda Balguri ee ka socota xaafadda horseyda natiijada waa gool iyo waxba oo ay ku farxayaan sida muuqanaysaba taageerayaasha kooxda reer horseed ee Balguri walaac gelinaysana kuwa kooxda sahan Munir
وأسمي دربديبا منير مركان محمد ليبان ugu dambayn qalad ayuu u tilmaamayaa garsoore Haaruun oo dhexdhexaadinaya kulankani way in noqonaya wareegga afar dhamaadka ee tartanka isdhexgalka bulshada looguna talagalay dhalinyarada xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jowhar maantana ay sayaan kooxaha Sahan iyo Baalguri oo ka kala dhisan Hanti Wadaag iyo Horseyd إسماعيل سهان نريد كجول كسهان وياما هذه وياما عالقة هو يحيي من درب كلل ويامه أنكو أرجع يتصرها هو حامد ما شطار خدها وياما قول هيا النفط وقال هيا قعدة سهان مركان عبد الله توني وأصدق الكوبدي ولي وكا مركان وسهان سهان أبونا gacan ku taabasho ayuu tilmaamay garsoore Haaruun waxaana yeelanaysa kooxda Baalguri ee ka dhisan xaafadda Horseyd Munir il capitano kubadda si wacan buu soo tuuriyay Munir Ali ayaa madax ku dhuftay laakiin Abuna Ismaaciil ugu dambeyntii kooxda Baalguri Horseyd Abdallah Tunis Sahan Hanti Wadaag kubadda waa banaanka waxayna noqonaysaa saaxiibayaal gacan ka tuur Abbas ayaana samaynaya oo kooxda Sahan Hanti Wadaaga Sahan Express waxay qayb ka ahayd kooxihii qadiimiga ahaa ee waayo ilaa iyo kuwa maanta lagu jecel yahay degmada Jowhar jiil cajiiba أنا الذكرى وعي وصبح حيان وقت حاضر كان جيل كله ذهبي مركان وعلي وقدام بيتي عباس كبدوا قربك وقدام بي وبنانك وحين النقر يساد عكتور عباس أيانا دربدي بسميي عمر نيمار أسامة أي قلم الرقد كسو بحيه كبداسي أما دبل مركب بشما محمد ليبان بشما عبد الله أبونا ugu dambeyn Abuna qalad ayuu tilmaamaya garsoore Haaruun Abdallah Tuni oo noqonaya laacibka ugu khatarta badan marka ay timaado Pasha kooxda Sahan Express ayana dhulka yalla oo dhaawac sheeganaya saaxiibayaal farsamo ahaan orad ahaan isaga waa kabiir waana mid ka mid ah ciyaartooyda uu sida weyn ugu xisaabtamayo kooxda macallimkan ee kooxda Sahan ee ka socota xaafadda Hanti Wadaag markaa saaxiibayaal kooxda Baalguri ee xaafadda Horseyd ayay yeelanaysaa kubaddaasi go'aanka ugu dambeeya waxaa yeelan doonaa garsoorka dhexdhexaadinaya ciyaarta ee Haaruun labada calawade waa Maxamed Kukaay iyo sidoo kale Yaxye kubadda waa la tuuriyay oo iridka goolka wayama isaga ayaa mar kaleeto nafta ku soo celiyay kooxda Baalguri وكوبات قلقل جلسيبا دفاع يدودي لا هلي قاري شبقودا مركان علي كوبات دواقيس علي وحوارين يا علي واتلاب سرايا علي لكن وحو ترتن إيا جالان جعلك كلا كل ويا عباس مركان كوبات دواقا محمد فرماجو لكن والله عكسدو كوبات دوا بنانكا عسني أيانا مدح كلفتي وهو حين قريسا كونا oo ay yeelanayso kooxda Sahan Express ee ka dhisan xaafadda Hanti Wadaag Abdallah Tuni ayaana u taagan kubaddaasi saaxiibayaal Maxamed Farmaajo ma Tuni banaanka koona annada koona kale ay noqonaysaa ama geeska la saaxiibayaal oo ay yeelanayso kooxda Sahan Express ee ka dhisan xaafadda Hanti Wadaag محمد فرماجو شابي وصل يريد كجولكا لكن مدحيا لوغا ساري مركا Abuna Abbas Sahan Odullana sidii daadkii oo kalena ugu fatahaysa shabaqa Wayama laakiin Wayama ayaa Ahmed ay adag tahayba in la dhaafo sidoo kale waa goolhayaha kaliya ee goolka dhaliyay inta uu soconayo tartankan waa waxyaabaha la yaab kale ee la xariiqay markan Sahan Maxamed Liibaan
محمد ليبان عمر نيمار سهان نيمار ني وكذا في نيمار عمر هيا مركب الشماء عبد الله سيغاروشكا ugu dambayn way soconaysaa ciyaarta sayga waa kaa lugta gashtay cabdallah ugu dambayn waa koona saaxiibayaal oo ay yeelanayso kooxda Sahal Express oo doonaysa inay samayso dib u soo laabasho wacan oo wanaagsan halka kooxda Balguri ee ka dhisan xaafadda Warsaydna ay u dagaalamayso in goolkan ay ku sii hogaamiso ciyaarta shobey galaya waa galayriska goolka popo bannaanka laakiin saaxiibayaal waxaana la dhigayaa koorna kaleeta ayay noqonaysaa saaxiibayaal oo qalqal ku ah difaacyada kooxda Balguri shobey el capitano waa dhaafay waa ka face to face ayuu ku dhaafay ciyaaryahankaasi marka Maxamed Farmaajo Neymar Goliato adiga ayaa noqday mid kadib u soo celiyay rajadii dhimatay ee kooxda Sahal Express ee ka dhisan xaafadda Hanti Wadaag adiga ayaa noqday mid ka sababta u noqday inay fadhi waayaan taageerayaasha kooxda Sahal Express ee ka dhisan Hanti Wadaag والله كعي جيس جران كاشون جلا استاديوم أنا حافظ عندك يا توين قريشة برمنا جول يا جولا ترايو كذي إن وقت حاضر كان هلكي وقعيسا يا حماسة بدنيت أي عيارته أوسي جيس رئيسو عمر نيمار وحو نقضي نكي وقهوري عمر نيمار وحو سبب النقضي بصلابشada kooxda Sahal Express sahan tababarada waxa uu diyaarsan dhowr ciyaartooy uu doonayo in badal uu ku soo geliyo Maxamed Farmaajo ayaana ciyaarta laga saarayaa halka sidoo kale dhaliyaha goolka kooxda Sahal ee Umar Neymar uu ka baxay Amin Esko iyo Yova ayaana ku soo biiray saaxiibayaal oo kooxda Sahal Express saanta ka dhisan xaafadda Hanti Wadaag ciyaartu waa gool iyo gool markale tabayna doonaysa Balguri inay sayso dad la wacan oo wanaagsan ugu dambayn Maxamed Liibaan kubadda waa uu soo saaray marka waa shobey el capitano bartamaha ha joogo afka hore ha joogo markasta ta shobey waa xariif markasta ta waa mid awooda Saygarushka Abdallah Bishima ayaa qalad galay saaxiibayaal waxaana la dhihi karaa waa meel kasta ka muuqdaha qadka dhexe ee kooxda Sahal Express waa mid aad u dadaal badan marka aad eegto jir ahaantiisa iyo waliba sidoo kale awoodiisa ciyaareed waxaanan isku dhigmin waxaana la dhihi karaa waa wiil ciyaar ahaan ka koray balse da ahaan weli aanan korin waayahay saaxiibayaal markaan iimaan ayaa qaatay kubadda oo noqonaysa kala barka garoonka saaxiibayaal waxayna qalqal gelin kartaa dhammaan difaacyada kooxda Sahal iimaan waa uu ka kacay laakiin madax ayaa looga soo jawaabay weli waa ka iridka goolka Balguri Horseyd Usama Abbas bannaanka ayay noqonaysaa waxayna noqonaysaa Gackatur Abbas ayaa sameeyay durbadiiba saaxiibayaal Gackaturkii ayuu qalday tayo ka dhigan in kubadda loo dhigayo kooxda Horseyd ee Balguri Usama baana laga sugayaa oo isagana ka mid ah hal doorada ciyaartan tare nuuciisa oo kala waayahan kuma arkin fagarayaasha kubadda cagta ee degmadan Usama mar waa ku difaacaya mar waa xawaareynaya iyo weerarka ayuu qayb ka noqonaya Xusne Balguri laakiin Ismaaciil ayaa jawaab degdeg ah ka soo bixiyay markan Amin Esko Amin weli waa ka markan Amin Sadiq ugu dambayn Xusne ayaa kubaddaasi bannaanka kaga saaray Sadiq waxayna noqonaysaa saaxiibayaal Gackatur Bishima Saygarushka ayaa samayn doona Gackatur saaxiibayaal Abdallah Bishima iska daya la yiri kubadda
waayo waxaad haysataa kaalin midaasi ka weyn oo noqonaysa ilaalinta qadka dhexe nuur iyo maxamed ayaa la filayaa in ciyaartaba ay bedel ku soo galaan oo kooxda baalguri ee ka dhisan xaafadda horsayda محدين يا عبدي أيانا عيارتك بحي صاحب بيال مركان وقع كتور صديق عسلي كما هانيس خالد أيو تلمام يا قرصوري هارون كوعدة بالقري أيانا لونيغا يا إيكا نيسان حافظة ورسايد tartankii loogu talagalay isdhexgalka bulshada khaasatan dhalinta da'adoodu ay ka hoosayso 17 sano marayana wareegiisa afardhamaadka maanta kooxda iska caadiri doonta finaalka ayaa annaga oo dhan aan u wada joognaa waa baalguri horseyd iyo kooxda reer hanti wadaag ee Sahani Express xaaladdu waa jaqayjaq markay halkaasi marayso xaaladda ma sahlana وانا جوي عد كستتبع انا فرحت قليلين وايو كوح كستتبع waxay doonaysaa in goor hore taba ay si xaqiijiso natiijada ciyaarta iman iyo xusni labadooda midkood baa laga sugayaa in kubadda ay u ciyaar geliyaan kooxda baalguri ee ka dhisan xaafadda horsay laakiin natiijo gool iyo goola waa jawi jahwareer Soma Maxamed aad u weyn tilmaano garsooraha laba wuxuu dhigay calaamada digniinta waxaana kala qaatay cali ciyaaryahanka lagu magacaabo xaafadda horseed ka socda ciyaaryahanka kale ku xirsan qalad uu ku arkay garsooruhu ayuu jaalaha ku sii way hay saaxiibayaal markan kooxda baalguri horseed ويا صاحبي مركا حسني وحولي لعيبكي نور اسماعيل ايانا برنا كوصاري ما شاء الله يا كوحدة Sahani Express isaga ayaa kubadaasi barna ka u saaray dhinac kasteetaba Munir iyo sidoo kaleeto ninka la yiraahdo Ismaaciil ayaa noqonaya labada ciyaartooy ee sida weyn ugu muuqanaya difaaca kooxaha baalguri horseyd iyo waliba sidoo kale kooxda Sahani Express ee ka dhisan xaafadda hanti wadaag kubadda waa halis Munir durbadiiba madaxayuu ku dhuftay laakiin waxaa jilibeeyay Esko Amin Esko kubadda waa Xusni markan waa Iman Esko Xusni محمد ليبان مركله محمد ليبان شوبي مركان بش ما يا نور اي فقاتيس هيا قلبي نغني صاحب او غلاي لعيب لي محمد يفقد بالبيور سعيد قالت فين نغني صاحب يا garsoorka ayaana kama dambaysta gaari doona garsoor Harun iyadoo dhulka uu yaalo laacibka Ismaaciil oo qaybka aragga sida weyn ugu dhex muuqanayay difaaca kooxda Sahani Express oo la'aanti marar badan ayaaba la luli karaa shabaqa gool haya ahi ee kooxda Sahani Express kubadda wada markan ayaa kubadda qaatay وعسل لودي إسماعيل أي سلودي مدام أويا نينجر أهان إيا أول أهم بدياسن إسماعيل كلا بركة جروكا ينقريس إسماعيل يرتق جولكا وقدام بيتي لكي جول هيا وياما ayaa laf dhuun gashay ku noqday kooxda Sahani Express ee hanti wadaag mooye iyo waliba ninka la yiraahdo Munir mooye mar badan bay birtabum kubad halis ahayd oo laga soo tuuray bartamaha garoonka ayaa waxaa madax ku dhuftay il kabitaan Munir si kasta uu dadaalayna gool haya wayama wadi waayayba kubadaasi inuu banaanka u saaro laakiin waxay ku dhacday birta saaxiibayaal
marka waa shoobey iridka golka shoobey mar kale shoobey iridka no laakiin maya waxay noqonaysaa garab dhaaf inkastoo kool uu keeni karay laacibka lambarka 9 ee cabdiwaaxid si kaleetana loo yidhaahdo yovaaq ayaana neeftiisu ay noqonaysaa waayahay marka waa caloofi sadiiq ayaa saqalad ku galay caloofi waayahay saaxiibayaal markan ismaaciil kooxda sahan kala marka garoonka mar kale kala marka garoonka ismaaciil oo ah nin xoog iyo weliba taya bum waa ka kacay broniga laakiin bannaanka siday wax ku socdaan waa si aan la saadaali karin ilaa iyo haddana waxaanan caddayn kooxda ay guusha raaci doonto inkastoo ciyaartu ay marayso barbardhac gool iyo goola sahan iyo baalguri markana puna sharma arke cabdiraxmaan apuna waa soo dhigay broniga cabdiraxmaan laakiin bannaanka waayahay waxaa la dhigayaa goolka kooxda baalguri muniir baana u taagan broniga imaan ayuu la ciyaari gaaray ayuu doonayay inuu la ciyaaro laakiin baaska waa uu dedejiyey taayoo ka dhigan in muniir oo ahaa laacibkii ugu deganaa xagga difaaca kooxda baalguri inuu waqti xaadirkan xasiloonadii uu dayacay gackatur bay noqonaysaa sadiiq waxaase loo dayay shoobey waayahay ciyaartu waa si xiisa badnaanaysa saaxiibayaal marka shoobey ayaa gackatur laga sugayaa shoobey waa uu qalday gackaturkii taayoo ka dhigan in loo dhiibayo kooxda iyo baalguri ee ka dhisan xaafadda horsayd imaan ayaa qaatay gackaturka saaxiibayaal tababarayaasha labada dhinac ayaa salka dhulka dhigayla taageerayaasha ayaa awoodila in ciyaartan fadhi ay ku daawadaan sababtoo ah kulanka wax weliba sidii la moodayay waa ay dhaafeen qalad ayay noqonaysaa saaxiibayaal waxaana kaarka digniinta la siiyey lambarka 10 ee kooxda sahan ee kisbaraysa ee hanti wadaag sadiiq laacibka lagu magacaabo ayaa xusni iyo iimaan ayaa laga sugaya ciyaargelinta bronigan oo si weyn ugu muuqanaya dadabka midig ee difaaca iimaan bum waa uu ka kacay durbadiiba broniga saaxiibayaal joog sare علي ayaa madax ku soo dhuftay oo markan waa kooxda sahan ismaaciil shoobey iimaan ayaa sajidka u galay mar kale ismaaciil allah maxamed liibaan mar kale kooxda baalguri horseed bartamaha garoonka jokore ayay ku soconaysaa saaxiibayaal xusne waayahay cali dheere laacibka aad boodo inuu ordayo inuusan ordaynin ayaadba kala garan karin laakiin waa xawaaraynayaa sidaasi ayay ku soo dhammaatay saaxiibayaal ciyaartii weynayd iyadoo labada kooxoodba ay ku heshiiyeen barbadhac gool iyo goola bal ka warraniyow ciyaartan misle sahan ayaa samayn doonta dib u soo laabasho ciyaartu waxaa moodaa in labada kooxood ay isku daaleen runtii hadda barbadhac hal iyo hal ciyaartu ku dhamaatay gool golaadii isla aadayaan marka goolku alaabtida iyo kooxood wixii ka soo baxay kulli halkaan ka tabin doonaa waana tartanka 17 sano jirada magaalada Jowhar wareegga semifinalka labada kooxood sahan oo ka socota xaafadda hanti wadaag iyo kooxda Baalguri Junior oo ka dhisan xaafadda Horseed gool uu qaybta hore u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdi Cadde kooxdiisa Baalguri ee xaafadda Horseed ayuu hoggaanka ugu dhiibay qaybta hore ee ciyaarta balse markii la isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta kooxda sahan ee ka dhisan xaafadda hanti wadaag waxa goolka barbaraha u keenay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cumar Neymar oo ah kubad uu ka helay diilinta 18 uuna sidaasi ugu bareejiyay kooxdiisa sahan ee xaafadda hanti wadaag runtii labada kooxood
kooxda horseed oo ka dhisan wareegii hore ee sideed dhamaadka hal iyo waxba ay kaga badisay kooxda lagu magacaabo kooxda ka dhisan xaafadda Hantabadaag ee lagu magacaabay Ocean Stars ee hal gool ba kaga badisay waxaan u leeyahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Wayama oo gool haya oo ah kooxda sahan ayaa gool kulaadyo ugu soo gudubtay wareegii hore iyadoo kooxda dayax oo ka dhisan xaafadda kulmis ay sidaas ugu soo reebtay kadibna ay sidaas ugu soo gudubtay marka tartanka waa markii saddexaad oo la aadayo gool kulaadyo maalin ciyaartan sidoo kale waa wareegii ugu horeeyay gool kulaadyo la aadayo runtii waan arki doonaa wixii ka soo baxo labada kooxood ciyaaryahanada natiijooyinka u go'aamin doono marka halkan ayaan ka tabin doonaa Tulman waa maantana ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhacday walow marka dambe kooxda horseed ka dhisan Baalguri ay ciyaaryahanka bedel ku soo galay Maxamed Bogba oo lambarka 42 u wata uu kaarka guduudan ama kaarka rosa uu ka qaatay kadib qalad bareer ah oo ku galay mid kamid ah ciyaaryahanada kooxda Sahan Express sidaas ay ku ciyaaraysa kooxda Baalguri Junior ee xaafadda horseed 10 ciyaaryahan waa loogu awood badnaa weerar badan ayaa lagu soo qaaday walow uu badbaadinayay goolahayaha cajiibka ah ee goosha ugu jira lagu magacaabo Wayama runtii laba goolahayo fiican ayaa wataan labada koox Cabdullaahi Aayi oo u qabta kooxda lagu magacaabo Sahan iyo ciyaaryahan Wayama oo u qabta Baalguri runtii waa arki doonaa labada goolahaye midkii kooxdiisa goosha u horseeda oo ciyaaryahanadana rigoorooyinka ka hor istaagi kara labada kooxoodna ciyaaryahanada daayar ay wataan oo rigoorooyinka oo ku fiican kooxda Sahan oo rigoor turis ku soo badisay wareegii kan xiga ay ku soo baxday way kooxda dayax ee xaafadda kulmis ay u soo gudubtay halka kooxda Baalguri Junior ee ka dhisan xaafadda horseedna waa markii ugu horeysay ciyaaraysa gool kulaadyada waana wareegga semifinalka afardhamaadka kooxdii guuleysata ama halkan ku badisa waxay u gudbi doontaa kama dambaysta tartanka finaalaha oo waxay ciyaar doonaan labada kooxood ee birinta soo bixi doonta ee kala ah kooxaha wadajir oo ka socda xaafadda Buulashir iyo kooxda kale ee Buulajasiira ee ka socota xaafadda Columbus kooxda Sahan ayaa hadda ciyaaryahanada u tuur lahaa gool kulaadyada diyaarsatay waxayna soo baxsay 5 ciyaaryahan ay xil saareen in ay u tuuraan rigoorooyinka halka kooxda Baalgurina laga warsugi doono ciyaaryahanada ay u xil saaran doonto tuurashada gool kulaadyada runtii taageerayaal aad u fara badan ayaa ka yihiin afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ay ka kooban tahay tartanka ayaana ah mid aad u xiiso badan waana tartan lagu dhiirigelinayo dhalinyarada da'dooda ee ka hooseysa 18 sano ama da'dooda ay tahay 80 ama 17 jirada waana tartan aad ay ugu muuqdaan dhalinyarada labada kooxood ayaana midka ka dambeeya doonaya halkan in uu guusha ka qaado Tulmano goolhaye aan ognahay in uu gool kulaadyo u reebay oo kooxda dayax ee ka socda xaafadda kulmis goolhaye Wayama oo aan naqaano asigana wuxuu yahay gool kulaadyo ay hadda bilowday ciyaaryahan ee kooxda Sahan magaciisa lagu magacaabo Cabdullaahi Toone ayaana bilaabay Cabdullaahi Toore ayaa u taaga tuuristariga orada saaxiibayaal oo kooxda Sahan anti wadaaga halka Wayama oo kooxda Baalguri xaafadda horseyda isagana uu noqonayo goolhayaha waxa ku horyaala imtixaanaada Cabdalla tari waxay u baahan tahay ka jawaabis Wayama xataa sidoo kale isagaba imtixaan baa horyaala inkastoo Toone uu ahaa laacibadiisa lagu tusay gudaha garoonka haddana waynu arki doonaa waxa uu ka samayn doono gool kulaadka saaxiibayaal Cabdalla ya Cabdalla waxaa tahay waan aragnay hiba ahaan siday noqon doontaa rigooradaada inkastoo gool kulaadku ay tahay nasiib haddana waynu arki doonaa Cabdalla Toone waxa uu ka sameeyo Cabdalla iyo waliba sidoo kale garsoore Haruun waa ay wada hadleen Cabdalla Toone dhawaaqa seeriga ayaa la sugayaa dhawaaqa seeriga saaxiibayaal Cabdalla Toone
noqday laacibkii ugu horeeyay ee weliba rigoore ka khasariya kooxda sahan ee ka dhisan xaafadda horseyd cabdalla ture wuxuu ahaa laacib hibadiisa lagu tusay gudaha garoonka mid yar oo xuf iyo xariiftaba ku wanaagsan waa uu ahaa laakiin rigooradii cirka ayuu ku tolay taayo wadna qabad ku noqonaysa taageerayaasha kooxda sahan express sahan wadna qabad ayay ku noqonaysaa goolkulaadka uu khasariya cabdalla ture xusney ayaana u soo baxay kooxda balguri ee ka dhisan xaafadda horseyd waayahay saaxiibayaal waayahay saaxiibayaal weli halkeedii ayay kasii soconaysaa ciyaartii bal ka warni cabdalla tuni waxa uu noqday laacib wuxuu ahaa si weyn ugu dhex muuqanaya gudaha garoonka haddana waxa uu noqday laacibkii ugu horeeyay hore ka khasiriyay kooxda sahan ee ka dhisay xaafadda antiwada tilmaanu horta rigoor sharciyeedu waxay tahay laacib aan nahay rigooradu waa nasiib runta cabdullaahi tuuni kubadda wuu tuuray laakiin banaanka ayuu marsiyey ma aqaan kolley wixii ka khaldan waa arki doonnaa markaan waxay u taagan kooxda baalgur ciyaaryahan ka socda xusni kolley hadduu hoggaanka u dhiibi karo kooxdiisa waa arki doonnaa cabdullaahi tuuni waa ciyaaryahan aad ugu muuqday intay ciyaarta ay socotay wuxuuna ka ciyaaraya garabka bidix lambarka 11 ayuu watay garsoore haaruun ayaa laga sugaya hadda inuu seeriga angeliyo xusni ayaan u tagaa kooxdaas baalguri ee xaafadda horseyd حسني ونك اللبات وهريا الله افتحا كادك حسني السقاية وليبا قول هيا حسني قول يا حسني وليبا سي عجائب لأيو وقوه صلاي شبخي وورديها كاها قول هيا آهي قول كي ويالا كهيا حسني سوى على ونكسر أيو كمدا سيولا هاي الكابيتانو شوبي oo isagana ahaa nin kale oo waxbara ka dhigay ciyaarta galabta tan ayaa isagana noqonaya laacibka labaad ee tuurista rigoorada u qaadanaya kooxda sahan express ee ka dhisan xaafadda hanti wadaag isaga iyo wayama haya shoba goliato Goliato weliba shoobay waxa uu ku tuurtay dabaaldegii dhowaan uu sameeyey mucjisada reer Argentina ee Lionel Messi markii uu tagay kooxda Inter Miami ee ahaa halkaagiiga istaag waa in weli ciyaartu ay tahay goolkulaadka mid aanan magaca bixin karin kooxda ay guusha raaci doonto inkastoo harrigoore ay lumisay kooxda Sahan Express ee ka dhisan xaafadda wadaag markaan iimaan lambarkii xidda marka afraad ee kooxda balguri banaanka iimaan dib ay soo noolaatay kooxda Sahan Express ee ay qayb ka sii ahaataba tartankan kadib markii rigoorada uu isagana iska aqalday iimaan oo laacib si wacan oo wanaagsan kaga xamaalanayay dadabka midga difaaca إيمان ياتوني عبد الله توني ولا بدأ ياتو إلا يحتاج خسارية جول كلها كامري غوردا أي أمين إسكو يوصل بحي قعدة سهان كان يسرح مدة هتوراك إلا يحتاج من هاي إسكا قصريين لبدا كوحوت سهان أو كسعة عمدة هتوراك إيا قعدة بالكوري كسعة عمدة وسعيد أمين إسكو أمين أمين بنقونية لاعب كله أو تاجر تورست جول كلات إنكستو إلا إيهاتان ريغوروين أيسكا خساريين لبدا عيارتو يكلا عبد الله توري وكتر سنة كوحدة السهان هاتي وداك هي إيمان أو إسكا كتر سنة كوحدة بالغوريا كسوعة حافظة ورسايد مركنا مين إسكو وعرقنا وقت جنسي ريال مدريد وأنا متكات كودياتو بل عذيك أنا معنا قدوة أمين بناكا تايو حالك كوسي عمينا يستاقر ياشا كنا السهارة كنسر عبدا هنتو ودا قول كلات سيدة دمو وفل الله ووحنا نفل الله هاي
ووحنا بالله يا أنا أقول كني وحريف إيا كني ودمين عبدي عدي oo ahaa midka keenay goolkii bulsoonaha ahaa oo ayna timid kooxda baalguriga ka socota xabda horseyd baa u taaga turista bronigan cabdi ayaa sabab u noqday inay dib u soo laabo rajada kooxda sahan inaad haysataa golhaya wacan oo wanaagsan mararka qaar waxay ku garsiinaysaa darajo kale inaad haysataa golhaya ahiyoo kale ah waxay ka dhigan tahay inaad tahay mid mar kastaba rajadiisu ay nooshahay marka ay tahayba gool ku laad cabdiraxmaan apura ayaa u soo baxay tuurista gool ku laadka kooxda sahan ee ka dhisan xaafadda hanti wadaag apuno seeriga sug ayaa la yidhi cabdiraxmaan apura دفعشدي سوى وعنيد عبد الرحمن أبونا قلبتو حال كوا سيدي وأي دافتي انتي أن نقيني وأي دافتي انتي أن يقينين وأي دافتي انتي أن ودن نقيني وانا سببتا أن كل هاي قلبتو وعكنا عيشان قلع استاذيام ووحلي يابلي وهي أذكتها يبا إن مقعلو فيهيو مركان علو في كوحدة بالقرية حافظة هورسايد قلبته waxa soconaya waa la yaab galabta waxa soconaya waa la yaab oo dhamaan ciyaartooyda waa kuwa badankood rigorooyinka khasaarinaya haya aloofi ayaa sabab u noqday in wali isaga wuxuu sabab u noqday farxadda taageerayaasha kooxda Sahan Express ee ka dhisan xaafadda hanti wadaag kadib markii kubadii uu soo laagay aloofi uu banaanka u saaray wareega afarnamaadka kulankiisii ugu horeeyay oo ay isku heleen baalguri iyo sahan wuxuu marayaa meel ay adag tahayba in magacba loo bixiyo صديق وكوحدة سهرة صديق قرأت الله قرأت لي ياكا حل قساريي كوكا ستاي قساريي من صدح تورشو هالكا مد أي وضع ليه koox kasteeto min saddex ayay khasaarisay saaxiibayaal waa sababtaan ku dhahayo galabtaan waa ay dhaaftay intii aan naqinay marka waa Sadiq lambarka 10aad ee kooxda Sahan ee ka socota xaafadda hanti wadaag iyo wayama oo baalguri horseeda Sadiq gool ku laad wareega waa midkii afraad haya صديق حريف له ولما واحد هذا وحريف دافعي si ay ku jirto akhliyad aragti iyo fikrad ayuu ku badasira oo awoodayba inuu gool ugu badalo wow gool haya ahi ayay horta gool haya ahi iyo weliba sidoo kale علي حقيقة وحو قيب كيهي ونن مركاد أركتوا قابكو وعياريو مركاد أركتو والنوع الذي يكروا دمات البار ما تفكي مانجستر وقالي يتطرهم استقعي أوتاقان علي لا كان وعلي وعاقل لافي ولبا هي أقول هيا عادو هلش فدن si xeeladaysan buu aagaga midig kaga dhigay kubadaasi waxaan ku sheegay Barbatov iyo Cali waa kuwa aanba waxba isdoorin waa lagu qabow yahay wuu ordaya mana moodaysid inuu ordayo runtii Tolman rajo fiican soo martay kooxda Sahan ee ka socota xaafadda inta wadaag haddii ciyaaryahanka khasaarana ciyaartaasi kuma laakiin ciyaaryahan Cali
صباح كوحدة بالقول حافظ ورسيد مركان وإسماعيل كوحدة السهان إسماعيل سهان أنت ولا جولياتو واو دليكم أدا وانا أولي ويبين دفاع وياما واو أولي ويكم أدا سينو دفاعه ما هتصرق يا أخي أنت وحنو ما هدعلن إن تلسكا إذا ماذا بوليسكا إذا ماذا جوهر وجوهر وليبة تليه هذا هذه يجا أيسن أهل هاي قلبت وحنا مسورو بلا يوايو قلقي جو وسحر جرانكا نور 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 أهي بالغوري سهان نور أستو غولياتو وحو يرانيغا جوغا إزدجيا سوى عن ولا هراي شبقي ولا لك هي قول هي آهي امتحانك وسيعة كارا يا صاحب يال امتحانك وسيعة كارا يا صاحب يال إنك استوى فرصة ذهبية أي سومرتي كوحدة صاحب يوفق السهرة لما كيس قالت كوحدة السهر أما عبد الواحد عبد وسيلة دو تقنو إيا وياما لما دو ذا أيو هريا الله امتحانا باك يوفق دينا بدي حيو كسي يقول هيا وياما أوسي كسو حريف تمي أودي وياما إنكم داسيو فناك وصارو ماركا قول كلات فالقري قول كلات فالقري عبد الله يا شي فالقري عبد الله يا شي عبد الله يا شي آهي عبد الله يا جاي او بالغوريا حافظ ورسايد ايا وصفحي توريست برونيغا عبد الله يا جاي غولياتو جرعي او فراي غول هيا اهي ايون كدغاي عبد الله يا جاي تايو كدغان ان غول اي ليمادين عيارتويدا كوخدا بالغوريا حافظ ورسايدا قلبت واسيدي waxaan ku qirayaa inaan tabinayno kulan u qalma wareegga afarnamaadka ee tartankan loogu talagalay isdhexgalka bulshada ama dhalinyarada degmada Jowhar Abbas George oo dalabka bidix ka ciyaarayay waliba sida aabihi oo kale aabihi waxa uu ahaa ciyaartoy horo kooxa waaweyn oo ka dhisan degmada Jowhar soo maray maantana wiilkiisa oo 17 sano ama ka yar ayaa wacdara ka dhigay garoonka Shongale Stadium ee degmada Jowhar waa halkii uu ku ciyaari jiray adoogii Abbas George sideed iyo toban leh isaga ayaa u taaga tourist Bronigan Abbas wayama Abbas wayama banaka أبين واحد كمان ويا هاي صاحب يا المكوى عباس ماركان منير كوحدة بالغوريا حفظ دور سيد الكابيتانو منير ميوسين دونا غوشا isaga ayay lugtiisa wax waliba ku xiran yihiin waa nin degan oo aad u wanaagsan laakiin Goliato sidaas ayayna guusha ku raacday kooxda Balguri ka dhisan xaafadda Arsayd reer Balguri iyaga ayaa guushii loo yeeyay saaxiibayaal oo rigoraya ayay guusha ku raacday inkastoo ciyaarta waqtigii loogu talagalay labada ay ku heshiiyeen barbardhac gool iyo goola maxamed aqbal ka wareeg galabtan xamaasada garoonka jawiga sida uu yahay كل ما نو روتي عيارة سيد قرآن كل سكوب دالي عيار يورد السكوب دالي روتي يقولون نكال توتي سديد لا توتي وانا قاعد اتكلم صاحب ميال الله يوتصنا